nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu inagula dardaarmayaa kow ixris calaa maa yanfacak wixii ku anfacaya inaad ku dadaasho waxaan ku anfacayn inaad ka tagto isla markaana inaad ilaahay tala saarato oo ilaahay subxaanahu watacaala aad u tala saarato wax walba wuxuu nabigu raaciyey markaa taa cagsigeeda waxaa dadka u diiday inay wax qabtaan walaa tacjis buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam تعجز هي تعجز لبضب والله رنكر أبو هذا إمام النووي لكن كسر ضعانة ولا تعجز هعجز كوا معي قفك بن آدم قال الله وحبا كل عبيد هذا الكسل والعجز بين هذا كسلك وقفك وهسي عدم الإرادة وقفك أن دونس بالهين إنه حقب طبر ربين عجسقنا وقفك يربا إنه وحي قبطه لكن هدنا قابن كارلا وطاقلا عدم القدرة شقق كستولا قبطه واحد هذا لبدا شيء بو عمل كوكوبني إن واحد دونيسيد يين دوديد مركاسو عمل كوكو قبصومية إن دونيسيد إن قبطه يين دودو نبي عليه الصلاة والسلام markaa wuxuu tilmaamayaa inaynan cajsinin dadka badh ayaa wax kasta ay qabtaan taswiif ku sameeyo insha Allah baraan samayn doona war maanta aad qaban karaysaa maxaa bari amal kale u dhigo ma ay baraan samayn doona wax kasta bari u dhigaya ama ma aha barnaamijyo iyo barnaamij buu degaya markaasuu leeyahay insha Allah saasa yeelaya sanadka dambe quraankan xifdinaya sanadka dambe waxaan rabaa jaamacadda ee balas inaan kaga baxo insha Allah waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaasi inaan galo waxaan rabaa kutubta inaan dhigto waxaan rabaa cibaadada inaan sameeyo laakiin afku kale yahay waa barnaamij afka ah amal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax amal isuma bedelayo in wax la bilan gareeyaa ma xuma laakiin waxaad bilan gareynaysaa waa inuu yahay waxaad awooddo qaban karaysa marka koowaad shay fii maqduurik waa inuu yahay waa inaad qof riyoonaya noqon dadka badh baa day dreaming adoo soo jeeda inaad riyooto maaha waxaanad samayn karayn haddaad iskaga wadwado waa riyo kale uun dadkii hurdaa riyooda dadka soo jeedana qaar baa riyooda oo mar haddaad waxaanad qaban karayn aad ka fekerayso waad riyoonaysaa waxaad balaangaraysay waxaad qaban karto waa inuu noqdaa marka labaadna waa inaad fulisaa fulintu dadka badh baa fulanima haysaa armaa dadku kula yaabaa armaa si xun lagu eegaa armaa shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh oo wixii uu qaban lahaa u diidaya armaa lagu idhaahdaa waxaan wuu istusaya waxaan kan buu samaynaya laakiin نبي وحينا ليه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز مرنا بها عاجز بل النبي عليه الصلاة والسلام صحابي وشقين شري أنس بن مالكها أيوح ليه هي أنو نبي وشقين أيوح بان مغلا يسقو كعل علينا يوله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال سوى كوع العلني يولا إله وحن كام مغنقلي ورورك يو البهارك يتيران يدي يمروقده همي قوا وحصاص عدا وقفك كورورو مستقبلك ولا مدوباده أو دبتنا قفك ورورو حزنقنا ووحي كتغي قفك وتيران يمروقك الريبة إذن ولا بورور أما اللي بول بهار لكن وحي كسلي سيهين مدنا ووحي تجي مدنا ووحى صوص عضه نبي عليه الصلاة والسلام لبدا إلهي بك مجنجلي وحكلوا إلهي كم مجنجلي العجز والكسل والله بدن حنونا إنه هذا الشيء جيني قفكو إنه عدم القدرة إنه حوادي وايو أما إن دونستو بكدمطه دونستو بين كدمطه ودadka badh baa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay waa raaxaysanaya buu leeyahay tan uu jiifaya sabaqtiga
waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay sida awgeed buu nabigu wuxuu ilaahay ka magan galay wahsiga iyo waxtaryarida wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay bukhliga iyo jubnigu waa baqaha waa qofku markuu wahsado dee wixii uu ka baqaya dabeetana si aad u sugaysa uu leedahay baraad qaban inaad u leedahay ayay iswada fuulaysa hadhowna waxay gaadhaysaa shaqadii waxaanad qaban karinba bukhliguna waa wixii oo anfacaagii oo aan dadka gaadhaynin wadalaci dayni waghalabati rijaal waxa uu nabigu sheegayna waxa ka ratibma daynta oo kaa xoog badata iyo bini aadamka oo kaa xoog bata xadiidkani waxa uu tilmaamayaa markaynu soo duuduubno qofka muslimka inuu qof active ah qof nashiita qof firfircoon qof raba inuu wax qabto qof camal adduunyo mid aakhira midun ku foogan qof aan noloshiisu khasaare noqonin ama waqtigiisu khasaare ahayn ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya walidalik buu nabigu wuxuu tilmaamayaa waqtiyada qaarkood ayacjizu axadukum buu nabigu yidhi waar midkiin miyuu kari waayaya an yaksiba kula yawmin 1000 xasana maalin kasta inaad 1000 xasano shaqaysato miyaad awoodi kari waayeysa nin raggii meesha fadhiyey baa wuxuu yidhi kayfa yaksib axaduna 1000 xasana oo midkaa yeesuu 1000 xasano u shaqaysan karaa 1000 ajara u heli karaa qaala yusabixu 100 tasbiixa fayuktub lahu 1000 xasana dee 100 goor baad subxaan allah odhanaysaa iyo waxa lagu qoraya subxaan allah intay kaa qaadanaysa 100 gooroo subxaan allah waa less than 1 minute ka waran hal daqiiqo oo noloshaada ka mid ah haddaad 1000 xasano shaqaysan karto saacaddii misaad shaqaysan karaysa waxaa meesha taalla markaa nabigu wuxuu leeyahy qofkaasi subxaan allahi yidhaahda ee tasbiixda la yimaada 1000 xasanana waa loo qoraa aw yuxatu canhu 1000 khati'a ama 1000 dambaa laga dhigaa cajsigu dad buu gaadhay inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan ilaahay baryadiisa xataa inay ka gaabsadaan sawgeed buu nabigu wuxuu leeyahay acjasu nnaasi man cajasa can idducaa acjasu nnaas man cajisa can idducaa dadka waxaa u caajisnimo badan dee ninka awoodi kari waaye ilaahay inuu baryo wa abkhalu nnaasi man bakhila bisalaam dadka waxa kaloo u bakhaylsan buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka dadka kala bakhayla inuu ku yidhaahdo assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa duco inaad dadka u ducaysad kala bakhaylaysa